Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waxaan caawa idin tusi doonaa sida loo sameeyo simikaarka cusub markaad soo qaadatid aada ugu xiri lahayd Wafi iyo My Account. Ugu horeyn waxaad u baahan tahay simikaarka markaad sidaas usoo qaadatid inaad EVC Plus kusoo xirtid. EVC Plus qaabka looguma xiri doontid. simikaarka markuu cusub yahay mobilka aad gelisid waxaad garaaci doontaa xidig 77 eber 4 gees, kadib pin cusub aad u sameysan doontaa. pinkaasina wuxuu noqon doonaa pinka aad horay systemka lagugu sameeyay aad u soo gudbisay. pinka EVC Plus-ka hal pin isticmaal. My Account markaa isticmaalaysan asana hal password isticmaal. Gmail-ka aad isticmaalaysan asana hal ha ku noqoto si aadan iskugu wareerin systemkani oo qalqal kaaga imaanin. Marka koowaad waxaan u baahanahay inaad simikaarka u furtid EVC Plus. EVC Plus-ka step-ka idin soo sheegay aad ku furi doontiin. Marka xigta waxaad imaan doontiin halkay ku qoran tahay computerkaaga, halkeed ku qoran tahay waxaad ku qori doontaa Chrome-ka ama si Google-ka waxaad ku qori doontaa My Account .hormud.com. then My Account .hormud.com markaad saan ugu soo kicisid numberka hadda aan idinku tusi doono waa numberkan. register ayaad ku dhufan doontaa, then numberkan halkan aad gelin doontaa. numberka markaad halkan sidaas u gelisid provide ayaad leedahay. provide markaad sidaas u dhahdid wuxuu diri doonaa OTP code EVC pinkaaga gelin doontaa, passwordkaaga u sameysan doontaa, mar labaad ku celin doontaa. idinku soo celiyo OTP code-ka mobilku ku soo diri doonaa, halkaana gelin doontaa. whatever number yar oo saas u gaaban noqon doona. pink EVC-ga afarta number ka kooban halkaana gelin doontaa, then passwordkaaga saan markaad ugu xirtid mar labaad haddana passwordka ku celinaysaa, then register aa leedahay. register markaad saas ku dhahdid automatically hawsha My Account waa dhamaystirtay. saasaad ku diiwaan gelisay simikaarkaaga. halkaasaan waxaan ugu bixi doonaa simikaarka markaad saas u diiwaan gelisay halkaan ku imaan doonaa. okay, isla numberkii ayaad soo qaadanaysaa aad wadataa. Wafi-ga hadda application mobile aan isticmaalayaa computerka igu jiro. Wafi-ga waan iska tirtiri doonaa. Wafi-ga saan Wafi cusub uu noqdo install dheh. marka install markaa dhahdid okay, install hadda wuu dhameeyay. dadka kale caadi waxay isticmaali karaan mobilkooda. qofka application-kan u baahan waan usoo diri doonaa linkigiisa. open ayaan dhahayaa Wafi-ga, kadib Englishkiisaan ku isticmaali doonaa. yes, get allow mar labaad allow kaleeto. okay, halkaan wuxuu ku leeyahay halka wadanka joogtid geli numberkiisa. Soomaaliya leeyahay, Soomaaliya numberkan ku isticmaali rabaa Soomaaliya. then EVC numberkaaga oo ayaa halkaan gelin doontaa, kadib confirm ayaa dhihi doontaa. OTP ayuu diri doonaa. OTP-gan aniga already mobilka hadda nooguma xirno, waxay noogu xiran tahay Gmail-ka. OTP-ga waa kanahay oo noo soo diray oo ku soo diray systemka. OTP-ga uu ku soo diray systemka waa kanahay. OTP-gan uu mobilka kugu diri doonaa. ana almost waa ku xirtay. markaa saas u gelisid saan kugu soo bixi doonaa. halkan allow iska dheh, kadib halkan cancel iska dheh. sidaan ayuu nagu soo kacay. kadib halkan waxaa gelin doontaa pinkaaga. pinka markaan saan u gelino login aan leenahay. mar labaad ayuu code noo diri doonaa. isla mobilka ayuu kugu diri doonaa. isla mobilka markuu kugu diro
koodhka waa soo qaadaysa. aniga already hadda gmailka igu xiran tahay, waxaan idinku tusooy wataa. okay, sidaan markaa ugelisid koodhka ugu dambeysa hadda soo gelisid, waxaad ku dhufan doontaa halka ugu koreysa oo settingka calaamadiisa ah. then settingkii ayaad kasii tagi doontaa, kadib janji email halkay ku qorantaa gali doontaa. emailkan already aniga igu xiran yahay, laakiin adiga emailkan ayaad soo gelin doontaa halkan. then anaga hadda tusaale dala@gmail.com haddaan dhahno, wuxuu leeyahay waxaad gelisaa OTP code. OTP-gana waxaa loo soo diri doonaa halkan. anaga ma rabno OTP-ga inaan gelino, already gmailkayna ayuu ka faqi doonaa haddaan sameyno. so gmailkaana ku dhaafeynaa, markaa samid dhaadhaada sidaana kugu soo qaban doonaa. kadib notification settingki ayaad ku dhufanaysaa halkan tig, saas inuu ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa qasab ah inaad ka dhigatid tig calaamada inaad dhinacan u bixisid cagaarka, sida uu kugu xirmado gmailkaaga. mar walbana wuxuu kugu diri doonaa gmailka OTP-giis ayuu ku diri doonaa gmailkaaga. okay, waa la update gareeyay. thank you. hadda waxaan sidaan ku dhameynay waafiga iyo my account sida loo furto. okay, waxaan ku xijin doonaa isla simikaarka. hadda waxaa gali kartaa waafiga, laakiin aan dhehen my account, laakiin looma baahna mar walba inaa my accountiga inta ka kicisid. hadda inta ka kicisid systemkaaga ayaa qalqal ku imaanaya. hadda waan tijaabineynaa. sign inaan leenahay, koodhka wuxuu kusoo diri doonaa isla gmailkan ayuu koodhka noogu soo diri doonaa. mar walbana waxaa wanaagsan si hore idinkugu sheegay hal gmail inaa isticmaashid. oo naga soo raagay. okay, wuu noo imaado ugu dambeyntii. koodhka noo qaad, halkan soo geli. hadda halkan wax lacag iguma jirto, simkaarkan wuu cusub yahay, laakiin waa ii diyaarsan yahay almost automatic. anytime aan u baahdo waa ku xiran karaa. okay, sidee loogu xirnaa marka hore digniin, halkan yaa la kicin my account yaa la isticmaal, laakiin waafi waa isticmaali kartaa, laakiin my account ma isticmaali karta. okay, systemkii ayaan tagi doonaa. systemkayni ayaan tagnay, aan rabnay inaan kusoo xirano. okay, markaa sidaan u imaadid, sidaan markuu kugu soo baxo settingkaa ku dhufanaysaa, model aa ka dooranaysaa. then ugu horeyn waxaa ka dooraneynaa SYNC meeshay ku qoranta halkan. then waxaa leenahay confine. meesha keliyana laga rabo inaa wax ka bedelno waa halkan numberka ku qoran tahay, iyo halkan emailka passwordkaaga emailkiisa, websiteka my account iyo passwordkiisa, pinkaaga EPC-ga already horaa noogu soo gudbisay. mar labaad wax ka bedelin markaa sameynaysid, haddana inta wax kaga bedelin qalqal ayuu ku imaan karaa systemka. halkan ayaad sida u qoran yahay oo kaleeta ugu qori doontaa, adigoo ka bilaabaya 25261 numberka lacagta lagugu soo diri doono oo ah numberkan ayaa halkan gelinaysaa. halkan waad gelinaysaa, then update ayaad leedahay. step 2 ayaan u gudbaynaa oo ah isla systemki markaad simkaarka ku xiraysid. kadib waxaad imaanaysaa USSD-ga. USSD-ga waa halka customerka ay ka arki lahaayeen. halka hore waxaa waaye systemka shaqada qaban lahaay ayaad ku xirtay. second waxaad ku xiri doontaa halka customerka ay ka arki lahaayeen numberka, waan halkan. telesom aa kugu qoran, telesom agtiisa ku qor xidig 88 eber. mar walbana waxaad ku garan kartaa numberka ugu dambeysa aad isticmaalaysay ayaad ku bedelaysaa. halkan sida uu qoran yahay eber 6 hal, kii hore wuxuu ku qornaa 252, kana 061 ayaa laga bilaabayaa. kadibna update ayaad dhahaysaa. kii horena sidoo kale update ayaad leedahay. haddaadan update dhihin wax isbedel lama arkaayo.
insha allah sidaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa video ku saabsanaay sida loogu xirto simikaarka ama numberka cusub systemka. ugu horeyn systemka waxaan idin soo dhahay wifi my account ku sameeya ka hor EVC pinkiisa u fur, my account ku sameey, then waxaad kusii xirtaa wifi-ga kadibna gmail-kaaga ku xir, kadibna systemkii ayaad ku xiraysaa insha allah. waxaan rajeynayaa inaad fahantaan. wixii faahfaahin fahmi weysaan intaan wixii ka badana ila soo xiriir insha allah. waa mahadsantiin.